السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu maanta ka waramaynaa 49 jirkii boqol kitaab qoray Sheekh Maxamed Jamaaluddin Al-Qaasimi waxa uu dhashay 1960 waxa uu dhintay 1911 cimrigii uu ku dhintay waxa ay ahayd 49 jir. Sheekh la oran jiray Caasim Al-Baydaar oo aqoon u lahaa ayaa wax ka qoray taariikh nololeedkiisii waxa uu yidhi Sheekh Maxamed Jamaaluddin Al-Qaasimi kutubtii uu qoray waxay gaarayaan 100 kitaab kuwaas oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba. waxaa intaa ka sii cajiibsan in sheekhu la sheegay inuu qoraalka bilaabay isagoo 14 jir ah. kutubta intaas la eg qoristooda dadaalka ay ugu suura gashay isaga oo ka faaloonaya Caasim ayaa waxa uu ka sheekeeyay qiso laga wariyay Sheekh Maxamed Jamaaluddin Al-Qaasimi waxa uu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayuu Sheekh Maxamed Jamaaluddin Al-Qaasimi soo hormaray maqaayad ay fadhiyaan dadkii waxa ugu badnaa dad dhalinyaro ah oo halkaas sheekh ku cabayay sheeko iyo haasaabo mooye wax kale kuma aysan mashquulsanayn dadkii halkaa fadhiyay. intaa kadib sheekha inta uu dadka si milgale u soo jeedaaliyay ayuu ku yidhi alla waqtiga ka dhiga wax la kala iibsan karo sababtoo ah inta halkaan fadhiso idin dhammaantood waqtiga ayaan ka iibsan lahaa. taasi waxay ku tusaysaa muhiimadda uu leeyahay waqtiga iyo in looga faa'iideysto waqtiga si wanaagsan. ogow haddii aad maarayso waqtigaaga waxaad maaraysay noloshaada oo idin naftaadana waxaad ku hagtay dhabadii guusha. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.